mid in la noqdo markii la midoobo oo horta ugu horeynta la israaco wax walba hagaagayaan. kulankan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah beesha degta labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud oo dhawaan la doonayo in maamul loo sameeyo ayaa waxa ay cambaareeyeen shirka ka socda degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kaas oo ay ku sheegeen inuu yahay shir aan beesha labinteeda la siin iyagoo ka mid ah beelaha ugu badan ee dega goboladaasi. Central Soomaaliya dadka mataqaana dadka degan iyo maamulka iyo fadhiga ka socdo in dib looga fiirsado xuquuqda ummadda ay leedahay in meel la soo saaro. haddii la soo saaro one man wada imaan doono. waxaana ay sheegeen in beelo aad u tirayar kuraas badan la siiyey halka beeshan ay heshay hal kursi oo kaliya kaas oo ay diideen haddana aan loo aaba yeelin oo shirka sidiisii uu socdo. tira ahaan qabaa'il naga tiriyara buuxo saasay taan tixgelintooda helaan ma arkin abaabulnimadooda ku helaan waxay ku helaan ma arkin qolooyinku wax noo diiday aniga ma dhahay maxay noogu diiday ma arkin wixii noo diiday annaga isu diidnay annaga isu imaan weynay annaga ma arkin qof walaalka garab siin weeyay dagaal iyo dhibaato waanu ka soo baxnay hadeer waxaan doonaynaa in la siiyo tixgelin gaar ah midda 2016 naftarkeeda waa mid meesha ku jirto waa in dadka dagaamadooda iyo waqtigooda iyo meelaha ka yimaadeen ayagana lagu dulqaato dadka ugu wax qabad badnaa hadii aan fiirin 22 sano jaamacadda dhiseen iskuulaad bay dhiseen waxay sameeyeen MCH sameeyeen hadaa fiirsad meeshan ka xad dhahayeen si loo dhis you can't imagine qof hadda kimaada ay sheegtay horumarkii iyo macnaha sida dadka ay waxyaalaha laga dhisay iskoolaadka you can't imagine it. waxaa sidoo kale looga hadlay higsiga cusub ee sanada 2016 qaabka awood qaybsiga. waxaan rabaa inaad isweydiisaan sababta loogu kala cararayo dawlad goboleedyada. dawlad goboleedyada ujeedada loogu kala cararayo waxa weeye 2016 sida muuqata Soomaaliya lama aha one man one vote inay ka dhacayso. awoodda waxa ay ka imaanaysaa dawlad goboleedyada. marka dawlad goboleedyada hadda hadeynaan awood ama xoog aynaan ku lahaan u malayn maayo 2016 in macnaha aan beeshan meel muuqato ay ka soo bixi doonto. Suldaan Daahir Bulxan ayaa sheegay in xaqii beesha ay lahayd la dafiray. ummadda Soomaaliyeed ee gobolada dhexe ay ku qaybsanaysa gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb waxaan aaminsanahay inaan xaqii beeshu ay ku lahayd aan nala siin sida awgeed waxaan doonaynaa guddiga qabanqaabada iyo guddiga wax qayminaya inay dib isugu noqdaan oo ay beeshaas waxay degan tahay dhul aad u ballaaran in xubintii ay ku lahayn Central Somali State in la siiyo laakiin lama oga in cambaaraynta ay jaaliyadda beeshani ee degta Australia ay tixgelin doonaan iyo in kale. wardinta nimankii haga ayaa la diidan yahay adduunya gadoonkii weeyo daba ka huray. shirka halkan ka dhacay ayaa waxa uu barbar socdaa shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Stockholm ee xarunta dalka Sweden kaas oo ay ku kulmeen boqolaal ergo oo ka socota beesha oo isaga kelimid qaaradaha adduunka. Ibrahim Umar Baafe, wararka Universal, magaalada Melbourne, dalka Australia.